مناسبة عشر شرفة أو لجوء دوين هي قدوميها وياها عصب شيني خيار أيها لجوء قبتي قلبت كمجال لندن دالكن إنجليزكا مناسبة ده وحق ساق بقلب بالشوين تأت وفربضنا وحنا سوء قاسمي حبلها أما كويوين كقرنك مجال لندن أما UK يعني راهضو أيوه الرئيسو أن قدوميها أن نظيفه أن وحى مناسبة كهل دوين هذا فربضنا وحنا عضت كودي أما هذا الكودي كم ده سيدة بسم الله الرحمن الرحيم وحن عاوه هلكن كسو دوينينا شين أخيار أو أقدميها ويا عصب ونوجي من سوماليا إلى نيروبي وأنا ويلير أو طلنتي أو فنان أو محي تضدك وعي قليا ونقفل بصومال ويقانا شين مثل شيء كرشة كذي سماء مثل كان بسوكوا بكرماء عوضة مركا عدا وحنا أقد بنا يا نظيفة علي أو قدوميها أوركويين كقرنكا UK marta sharafta halkan caawi isugu timi waxaan leenahay shiine aqyaar ku soo dhawow UK walaalkeen meeshan waa London haweenka qaranka Soomaaliyeedna caawa si fiican ayay ugu tala galeen inay ku soo dhaweeyaan qaar kamid ah maadaama oo wadanka kala dheer yahay marka shiine waxaan ku leenahay walaalkeen ku soo dhawow London marka insha Allah waxaan rabnaa in aqbaar naga siiso dalkeenu hooyo oo aad hadda ka imaatay in bal wixii fariin ah ama aad micnihii oo aad nagu kordhinayso oo wadankeena dardalgelintiisa ah ayaan ka sugaynaa shiine maadaama aad tahay qof maanta khibrad u haya wadankeena hooyo waadna mahadsantahay shiino ku soo dhawow London thank you hooyo aad iyo aad qaran u ah meel walba Soomaalida timaada ama urur kasta la joogto oo gacan siisa ahna hooyooyinka hore Soomaali ka soo shaqeyn jiray oo maxay ahayd halganimada iyo dawladda iyo kacaanimada iyo everything aan ku ah magaceedana waxa la yiraahdaa Faadimo Xasan Jaraafa wuu mudan yahay intaan iyo in ka badan in loo sameeyo waxa uu Nairobi ku hayo dadku soo saaray tan iyo Mareykanka meel kasta jiraan waa wax loo riyaaqaa waa wax taageero ballaaran la gaarsiiyo qalab ha noqoto wax qabad kale ha noqoto wuxuu u baahan yahay inuu noqdo tusaalana u noqdo si degdegana xamar inuu ka sameesto tiyaatarka bandhig aad u ballaaran oo taabanayo midnimada Soomaaliyeed lagu gubaabiyo ummadoo dhan inay far tahay Soomaali waa Soomaali Soomaali Soomaaliya leh midnimada wax ka weyn oo la heli karo male hadda ka hor waxaan sheegay arintii ahayd axyaa wadani يا صومالي هي أحياء ودني وحكا وين ماله واجي صومالي ذا الرادنا يا لغو بالله ما أنتنا وإنا يصو عصبوناتا وناجسا ويا عصبنا هو شيء ودان هو لو مالين كر أولا يريسان كرا معها وأركتي وحي سميين ومدنا رالي بيكتاهي وحان لنا قوليستا إذن كوضرلن هرانو الصعودة محيطود مسؤولنا كأ mother and child and welfare group كاس أو مد أي عاونان عرورتا يضطك دبعتيسان وإن سوماليا جوجو نعم كسودو السلام عليكم حاسعبك اللي قاقرب السلام عليكم ورحمة الله مقعي قصيدة شكرا مشاكتي ونعيمة على حرات وقال لي قدوميها أورك مادر عن شال ويلفير أورجانيزيشن waxaan marka hore halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto salaanta muslimka assalaamu alaykum wa rahmatullah markii xig waxaan leeyahay sharaftaan dadkii qabanqaabiyay oo quruxda badan aad ay u mahadsantihiin in dadka qiyaarto maanta isugu yimid marka labaadna waxaan leeyahay Maxamed Cabdullaahi Cali Shiina qiyaar Shiina ay dadka ku dhaayeen laakiin awooyi aaban kugu dar waxaan maxaashiine waa wiil aad iyo aad u firfircoon sida horeba loogu sheegay aadna aan u xiiseeyno markuu heesaha wacyigelinta iyo gubaabada iyo qiirada uu soo saaro haddana shiine wuxuu socodkiisa u sii socdaa Nairobi waxaana leeyahay sii socdo nabada soo noqdo nabada mar labaad welcome to London gacmo furan ururka magaciisa aan ku sheegana waxaan ka rajaynayaa in magac u sameeysid maadaama uu aad u caawiyo hooyada dhalaanka xabsiga caruurta aad u sameysay hees adiga groupkaaga aad ayaan u salaamayaa waxaan hadda maxay u dhiib doonaa oo aan u gudbin doonaa Cabdi Cumar oo ah gudoomiyaha jaaliyadda UK الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مركور وإن سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد السلام قبلها قال عشونها عملينا مرقنا وقال عشود اللي قالوا marka hore waan salaamayaa gabdhiina sharafta leh haweenka qaranka Soomaaliyeed soo qaban qaabiya xafladan qiimaha badan ay ku soo dhaweynayeen walaalkooda dhalinyarada heesaaga wadaniga Soomaaliga intaas la isku darsaday aad bay u mahadsan inta kadib waxaan u maleynayaa qaranku hadduu hagaago waa soo hagaagaya insha Allah qof walba qaanadu ka gali doona qof walbana qaanadiisa wuxuu diyaarsado si shaqaystay laakiin waxa la shaqaysan lama heli doono waxaan u maleynayaa inay u caddahay qof kasta oo Soomaaliya qaanada ay ka gali doonaan waayaha cusub waxa kale runtii xaqiiqa inuu yahay Shiino nin ka dhex muuqdo waayaha cusub waad ogtihiin Soomaaliya markii dhibaatadu ay dhacday iyo burburku caqabado badan ay yimid nimanka haday muusiga naga dimin lahayn oo fiicnaan lahayn naga gaabin lahayn caqabado badan ba ayaa yimid wadankii imagine marka waad aragteen nimankii dadka dilayay ee qoorta ka gooynayay qofna aanan u naxaynin ummadda Soomaaliyeed oo dhan caqabad ku ahaa dawladnimada caqabad ku ahaa dadkii u istaagay cid iyaga ilaalinayso wardiinayso iyo ciidan daba socda asoonan jirin ayadoonan jirin maxay ahaydey meel ay ku gabadaan ayadoonan jirin iyagoo maxay ahaydey la raadsanayo oo meeshay galaanba looga daba tagi karo cid dadkii u bareeray oo u qaaday heeso ay uga soo horjeedaan ummadaas dadka caqabada ku ama dhibaatada ku ummadda Soomaaliyeed waa dareemi kartiin qaanada ay ka galeen ummadda Soomaaliyeed runtii dagaalku sidiisa ma aha xabada kaliya dagaalku waa qaybsama qayb badan oo leeyahay waagii 77kii aan ku jirnay aan dagaalka kula jirnay waagii dagaalku naxmaray anaga Ethiopia maraba history ahaan soo qaadanaya laakiin ma aha hadda inaan cadaabad abuurayo oo hadda dal darisaanahay laakiin waagaas waad xusuustaan heesii la qaadi jiray wadaniga ahaa lala daba taagnaa ciidanka qaranka waxa ugu badan ee dagaalka ku galeen waxay heesii macaana il qaaday maanta waxa bedelkeedii noo galay fanaaniintii waa burburtay dalkii waa burburay waa la kala tagay waxa noo galay bedelkeeda waayaha cusub oo isxil qaamay oo qaaday heesii oo kale maxaa loo baahan yahay marka waxa loo baahan yahay cid kasto oo ka qayb qaadato dib u dhiska dib u hagaajinta iyo dhisidda ummadda Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeedba in la siiyo abaalmarinteeda maxaa yeelay annaga waxaan dilay oo na wareershay waxa waaye walaalayaal waxay raali ahaad annaga waxaan wareershay cid kasta oo maanta wax u qabato wadanka Soomaaliyeed lama abaalmariyo wixii ay sameysay lagu abaalmariyo cidii dhibaatada geystayna dhibaatadeeda lagu abaalmariyo hadda marka wixii ka dambeeyo sida dawladda noogu dhalatay Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweynaha ka yahay saacadna ra'iisul wasaaraha ka yahay waxa hadda qorshaysan oo diyaarsan in jawaarina ra'iisul wasaaraha ka yahay saddexdooda gaash uma wajeedin galaashada ku dhagay dadweynaha baarlamaanka waxa qorshaysan oo diyaarsan oo kamida maxay ahayd shaqooyinka la qabanayo kamida cid kasto oo abaal u geystay ummadda Soomaaliyeed in la abaal mariyo abaalmarinteeda la siiyo waayaha cusubna waxay kamid yihiin dadka la abaal marinayo laguna abaal marinayo halgankii ay u soo galeen xornimada ummadda Soomaaliyeed because xornimaan galnay 20 sano markaan burburnay kadib in wadanka dib loo xoreeyo noqotay xoreyntii ka qayb qaateen aad iyo aad ugu mahadsan yihiin Shiino iyo kooxdiisa waayaha cusubba waxaan leenahay dadaalkiina meeshii ka wada halganku ma dhawa ilaa Soomaaliya mid oo hal mid hal fara kulligeed oo one man one vote laga qaadayo qof kasta wadanka jooga aan gaarayno wali halganku haddana waxaan ku soo dhaweyn doonaa wiil walaalkanaga ah oo marna wariye ah oo waxtar weyn asagana ka geystay wadanka Soomaaliya magaciisana waxa la yiraahdaa Duraan السلام عليكم دمانتين dadkan wajiyada quruxda badan leh caaw halkan isugu yimid damaantiin waa salaamaha yaa rag iyo dumarba kuma fiicni inaan masraxyadan oo kale ka hadlo meel qarsoon baan fadhiyaa inta badan aan ka hadlaa oo waxaan doono markaas aan ku sheegaan isleeyahay dadka ay u fiican yihiin
laakiin bal waa isku dayaya maadaama microfonka la dhiibay dabcan taariikhda kooxda waayaha cusub oo shiino khiyaar oo gudoomiyaha u yahay ma ahan mid halkan lagu soo koobi karo sida Cabdi Cumar iyo gabdhaha walaalahayaba ay sheegeen waa koox inta badan noloshoodii ku soo qaatay in ay kala qayb qaataan dareenka wadaniga ee dhabta ah ee ka jira dalkii hooyo ayaga oo waliba sideenoo kale qurbo ku nool bay waxay doorbideen in ay dadkooda gudaha jooga la qaybsadaan dareenka iyo tiiraanyada xambaarsanaa hadday noqon lahayd kii abaaraha hadday noqon lahayd kii colaadaha hadday noqon lahayd kii baraarujinta dalka iyo dadka la baraarujinaya dabcan dhib badanna qudhoodu waa ka soo mareen sida Cabdi Cumar sheegay idan cid waardiyeysa lahayn oo meel walba dadka ay waxyaabahaas kala hadlayaan ama suugaanta ay u tirinayaan ama codkooda ay gaarsiinayaan ay meel walba la joogaan bay haddana waxay ku dhiiradeen oo doorbideen in ay runtii iyo daacadda aysan ka gaban oo ay u sheegaan waxyaabaha qaldan ummadda Soomaaliyeed jidka xun ee lagu hagahayo sidii looga duwi lahaa ay tooshka ku ifiyaan qoladii arrimahaas falaysay shiine hadda ka hor waraysi baan la yeeshay waxaan ku iri shiinow niyahow maxaa kuu kalifay adiga dawladda iyo ama ku meel gaar ahaato ama federaal ha ahaato ama waxaa tahay dhallinyarada laftirkooda xuquuq bay leeyihiin maxaad maalin walba dhallinyarada ugu taagan tahay oo maaragtay dhallinyarada laftirkooda xadiisi akhrinayaan wax sax ay sheegayaan marka xoogaa ma kuwa kalena ku tuurtid baan ku iriyo haddii wax qaldan yihiin oo aad xagga kalena u leexisid marka wuxuu igu yiri targetkeennu waa meel ballanteenu waa meel kuwaas markaan iska safaynaa insha Allah tacaala wixii qaldan oo kale aan runta u sheegi doonaa ama wadada wanaagsan aan marin doonaa inkastoona qof aan anigu aan ku qancin su'aashaasi oo wali abiil aan ka qabo laakiin haddana dadaalkooda sida ka dhigay gabdhaha sharafta leh gabdhaha hooyooyinka qaranka Soomaaliyeed ee sharafta leh ee munaasabada soo agaasimay aad baan ugu mahadcelinaynaa anoo ku hadlaaya rag qaar baa xishood badan oo malaynaa ragga afkooda anoo ku hadlaaya aad baan idinku mahadcelinaynaa walaalka shiinana waxaan leenahay shiino dabcan waxaan filayaa inaadan naga dhammaan doonin haddii la yiraahdo xilligan xilligiisii hore waxaad ogeyd damashaadkii iyo soo dhaweyntii London lagu dhigay welina waa kula daba taagannahay dhawaana inaad noo soo noqotaan rajaynayna waliba waxaan filaynay inaad adoo kooxdii oo dhan wada socotaan aan idin sii diyaarinay barnaamijyada iyo wax laakiin waqti yar oo dib dhac u yimid waan rajaynaynaa summertime-kan inay maaragtay ay ku aaday hawlahoodii oo shiina hadda markuu noqdo ay dib u imaan doonaan kooxdii waayaha cusub oo bandhig faneed buuxa ku samayn doona qaaradda Yurub oo dhan haddii la yiraahdo taasna waa sugaynaa welcome to London baan ku leenahay shiino gabdhaha qarankana aad baa u maastiin haddana waxaa u dhiibi doonaa wiil yar oo codkar ah oo wariye ah oo wariye cusub ah oo dhalinyaro ah magaciisa la yiraahdo Cali Aar waa maasantiin gabdhaha Soomaaliyeed ee sharafta leh xalfadan maanta u sameeyay soo dhaweynta shiina khiyaar runtii aad idinka mahadcelinayna waajib ina saarnaa oo ay naga gudateen waaye shiino waa dhalinyarada ugu firfircoon ee hadda aan ku dayano runtii inta yada jecel waxaan ka warqabnaa dhawaan inuu ku dhiiraday inuu magaaladii Muqdisho tago oo asagoo wata kooxdiisii iyo waliba kuwa kale oo xataa fanaaniin kale ajnabi ah Afrikaan iyo Hindi iyo ay ku jireen runtii aad aan ula dhacay barnaamijkaas thank you dhalinyaro badan oo Soomaaliyeedna wuu isku xiray runtii wax aad loogu fiicnaa waay gabdhaha Soomaaliyeed ee maanta xalfadan u sameeyay gartay inay soo dhaweeyaan runtii waajib saarnaa reer London ay ahayd dabcan waa idinku yaqaanaa reer London dadtiin gabdhaha firfircoon oo mar walba qaranka iyo dadka qaranka Soomaaliyeed garab taagan aad runtii idinka mahadcelinaya gabdhaha waxa kula rabaa inaan kula dadaarmaa waxay tahay kow horta in la garab istaago kooxda in la soo dhaweeyo kaliya maaha kooxda waayaha cusub iyo dawladda guud ahaan in la garab istaago oo ama dhaqaalaha noqoto ama si kale ha noqoto la garab istaago loo muujiyo inaa garab taagantihiin second in dawladda la taageero dawladda Soomaaliya wax ka warqabnaa dabcan waa taageersantihiin laakiin haddana gabdhaha Soomaaliyeed waxaan rabnaa inay dawladda taageeraan oo ay dawladnimada taageeraan oo ay maamul goboleedyada iska daayaan oo ina for good inaad tirahdaan gabar Soomaaliyeed oo dambe iyo maamul goboleed la isku mooga dawladnimada haddii madaxweynuhu tago madaxweynaha kale imaan doona kan kale imaan doona laakiin dawladnimadu way jiraysaa marka insha Allah gabdhaha Soomaaliyeed taasaan ku boorinayaa gabdhihiina Yurub Naciimo iyo asxaabtan caruurta ka shaqeysana very important waa in caruurta Soomaaliyeed ee wadankan qurbaha jooga la Soomaaliyeeyo oo Soomaali laga dhigo oo caruur Soomaaliyeed oo
muwaadiniin ah oo asalkoodii ku faana heesii la oran jiray sankundheef lama ogoli inuu iga sarrayn karo Soomaali baan ahay ilmo Soomaaliyeed oo in la soo saaro warjiina aadan idinku mahad celinaya waa mahadsantihiin علي عيد والبوي تقانا وويل يرى أفتهن حدنا وحودي باي دكتور حسن حسين. السلام عليكم. حفلتنا وحاوي دتك سوء أبابولي كشقي مدة بدن وقتي جلي هرتقاد أيام وجم هاد علنينا وأنا كفر حسن هاي مدة ذكر ولا الكينا والسجان الصوماليات كر وقاضي إسلام مركز نواياها عصب قدوميو آد أيام لنا كسودو لندن anigu hadalku kuma fiicni laakiin waxaan aaminsanahay fanaaniintu waxay wax ku sheegaan talo iyo tusaalabo waa qayb kamid ah aqoonta oo muhiim weey suugaanta marka waa taageereynaa waana soo dhaweyneynaa xafladan quruxda badan iyo xaflado ka badan aadna waxaan u jecelnahay anagoo dalkeena ku wada laabano aad adiga masraxa tiyaatarka hor istaagtid sida fanaaniintii hore marka taasaan u jecelnahay assalaamu calaykum intaasaan hadalkayga kusoo koobay دكتور وما تصنت هذا المعن كسر دوينا يا سيمبلش أضاق أخيارنا أضاق سومالياتنا جعلنا هالجماء وناجنا كتاليا يا سيمبلش كسر waxaan ilaahay ka baryayaa maar subxaanahu wa tacaala casharaftan qiimaha leh oo aan isla caawa maartay casho aad u macaan oo walaalkeen aan ku soo dhaweynay waxa ka fiicnaan leh sida qaarkood ka dhawaajiyeen ninka bacdaw nin dhalinyaro ah oo maanta dal Afrika joogo oo Soomaali tagay oo Kenya joogo inaan ku kaalmeyno haddii oo ogtiin fanka siiso qarash u baahan yahay qarashkan waxa waaye qofka banaadamka naftiisa soo raado ilmo yar ah ninkaas intaas keer baan arkay waagi oo maarta maxaa dawladda ay burburtay inuu bilaabo soo yar inuu hawsha ka bilaabay waan rajaynaynaa in lagu daydo wax dhaliilku waan wax dhisma naqdaa دليش قفك واحد دليله وأنا اسمه نقدا لكن وين النقن واحد دمس وين سنقن محايل ودنكو دلك يجوا وأوجه الدين سوء بيلهيه مركب فنك وحن كعصنا يقول كان يرى قصة وياها وصبأة إلهي وحن كبر يا سيد جروب كيسة أما دلني يرى ما أنت لجرتاي إنه كود دجال لمان وأوجه هاي دتك كي يجوا سبيشال دد وده تجي يا دد إبجيي إنه وده هاين haddana ay istaageen oo safaaradihii dalkaas shisheeye ee ilmaha dhalinyarada waayaha cusub ah ay kaalmo iyo bilada la siiyay shahaadooyin laga siiyay meeshaas sida TV-yada iyo marto website-kan ka arkay marka waxa ay muuqanayso inuu niman dhalinyaro ay yihiin u baahan inaan kaalmeyno anagana waxaan inaga baryayaa insha Allah Soomaali soo u sheegay doctorka aan kaalmeyno soo u sheegay calaarin maamul goboleedna aan kaalmeyno qaranka ninkii hoggaanka naqdo wuu tagayaa xaqinka waa dhamaan laakiin ciidda ma dhamaanayso Soomaali waxa deeqad hal meel marka inta ku mashquulayna shalay inta ku mashquulayno tii maanta naga fayso tamaanta intaan maarta ku foorarno ayada lafteeda aan leenahay dadka dhaca aan leenahana mustaqbalka iyo future-ka ummadda carruurta dhuminayna marka waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay ummaddeena isku keeno midnimo Soomaaliyeedna la helo inta xoogaa hoos ka guuxaysana waxaan leeyahay intaadan maarta dharar lagu dhowray dadka dhinac ka raac yani runtii ninka dulmi doono dulmidiidu arkaa laakiin waxaa haddana mushkilaha dulmidiidkoo dulmidoon naqanayso dhib kale ma marka waxaan rajaynayaa biidnillahi alkariim kaana in laga digtoonaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad aad u mahadsantahay yaasiin bulsho waxaan halkan si sharaf leh oon caawa annaga dhan wada istaagno kusoo dhawaynaynaa annaga dhan wiil yar oo heesaa ah oo fanaan ah oo qaran ah oo guubaabiyo Soomaali oo dhan wax ugu sheego heesiisa magaciisa la Shiine Cabdullaahi Cali oo ku magac dheer Shiine Akhyaar waa salaam dhamaantiin arsalaan kadib runtii hooyo waa hooyo waxaan xasuustay hooyo haddaad 9 jirid iyo haddaad 3 jiridba wiil yarba ku leedahay laakiin runtii waxaa garan kara inay hooyo dhan isku mid tahay oo haddii hooyaday maqan tahay hooyooyinka Soomaaliyeedna 3 jirkay ugu sheegayaan waa maanay taa waan idinka mahad celinaya runtii waxaan rabaa inaan mahad celiyo dhammaan hooyooyinka qaranka Soomaaliya ama hablaha qaranka Soomaaliyeed
sharafna way tahay inaan caawa hadaladooda iyo kulankooda iyo cashadooda kala qayb galo iyo soo dhaweynteeda runtii waagi hore markaa baxayna aad baan uga shalaayay anoo waqti la qaadan hooyooyinka qaranka gaara inaan ka laabto inta maraa ka tago amaanta iyo bogaadinta iyo cashada iyo karaamada la huwiyo dhan maahan waxaan kaliya mutaystay waa waxa ila mutaysteen dhalinyaro fara badan oo iga da'yar qaarkood xilliga bilaabiyan laga yaabo inaysan 7 sano 8 sano ku bilaabeen oo runtii ayaguna jooga Afrika aan ku mideysanahay dalada waayaha cusub inta maraa ka tago waxaan rabaa marka koobaad inaan idin la qaybsado adinka iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedba tiiraanyo naxdin leh oo runtii TV-da caalamka laga soo daayay oo ah wiil Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo ganacsanayay oo Afrika wadada dhexdeeda dhagaxan lagu dilay runtii waxay la tahay in qof walba oo Soomaaliya uu ku mashquulo intii lagu mashquuli lahaa interest kale ama gobol ama dawlad aan u muujino taageero runtii maanta waxa laga yaabaa dad gobol tabanaya ama dad dawladda wax ka tabanaya ama dawladda laftigeedaba inay mudaharaad qarashaad badan ugu bixinayaan inay ku dhigaan laakiin waxa ka fiican kana qiimo badan qofka walaalkeena silaca u dhintay inaan u muujino kuwii xaqdarada ku dilay iyo kuwa kaleba hadal yaan ku dheeraanin waa maasantihiin runtii taasna waa waajib noo saaran runtii in lowdugo runtii marka maanta arko aad aan naxa oo ma maleynay inaan maartay macna ingiriiska inaa xataa xoog noqdo meel nooc kale ah laakiin yaan idinku sii badinin ooyne inta marka ka tago aan salaamaya duraan Cabdullaahi Shirwac Home Cable TV London